Asalaamu calaykum waraxmatullah. Maasha allah, waa kaas waa face watchkayga aan wejiga ku dhaqdo. Maasha allah, wejiga waxaan ahay dadka wejiga uu saliida leeyahay. Shirkadda oo creamkan waxaa la dhahaa Siraaf. Ani wadankan joogo waa laga helaa, laakiinse midda kan aan hadda isticmaalayo gabadhan saaxiib nahay marna walaashay baa hadiyad igu keentay. Maasha allah, ilaahay hadaaye. Kulli maanta waa jimco, waa jimcihii ugu dambeeyay oo bisha Shacbaan. Britol insha allah sida loo badanayo waxaa kowsan doonaa Ramadaan, shahri Ramadaan insha allah. Ilaahow waxaan leenahay kuwaad u dambi dhaafto eed cadaabta ka xoreysa naga dhig insha allah yaa rabbi. Ilaahow addoommadaada daciif aan nahay. Waa kaas creamka haddaad rabtid, anigu dalka Qaahiraan ku noolahay, laakiinse waa cream meel kastaa laga helaa. Siraaf baa la dhahaa, qofku meel kastuu joogo uu ka heli karaa. Marka maasha allah, de waa kaas. Maanta waxaan rabaa inaan routine yarni la wadaago. Gurigaan rabaa maanta inaan isku diyaarinta Ramadaanka awgeed inaan xoogaade aan ku sameeyo deep clean. Awalba waa nadaafadeynay, laakiin waxaan rabaa nadaafad sax inaan ku sameeyo. Waa taas wada aragtaan, midaasi waa macjuumka amba midka aan isticmaalo oo dawadii oo ilkaha lagu cadaysanayay. Taasna waa midda aan isticmaalo furshada, waa midda ugu wanaagsan. Waxaa la dhahaa Oral B. Waa very soft, aad buu jilicsan tahay, waxayna leedahay bahalo extra oo dheeraad qofkii meelaha oo daldaloolka ilku waxay galaan oo kale sifaynaysaa. Waa kaas maasha allah. Hadda waxaan marsanayaa creamkayga maalintii amba intaan hawshii waxa hayo waxaan rabaa inaan xoogaa ii marsanaado insha allah. Creamkan haddaa rabtiin magaciisa halkan baan isoo saari doonaa. Waxaa la dhahaa Riposte. Waxaa laga keenaa isna Faransiiska sameeya, laakiinse aniga maasha allah gabadhaas baa ii keentaa nii sheegay oo marna saaxiibadaya marna ruuxdaydii. Ilaahow ida aamiin soo dhaha, iguna soo duceeya insha allah inuu ilaahay abaalkeyga lama gudi kare, inuu ilaahay abaalkeyga jannada ka dhigo. Hala igu soo duceeyo insha allah. Creamka waxaa la dhahaa Riposte. Habeen iyo maalin buu leeyahay, laakiin anigu habeenkiisa ma haysto, dharaartii baan isticmaalaa. Maasha allah, oo kaas wada aragtaan. Hadda waxaan bilaabayaa nadaafadii guriga miyaan dhahaa. Maanta waxaan rabaa inaan bacda iska jaro. Sodonka Ramadaan xoogaa meelahaas inta yar ee fudfudud baan ka qaban doonaa, laakiin maanta waxaan rabaa inaan deep clean suubiyo, roogagaan iska xaaqo, korkooga aan tirtiro. Maasha allah, waxaa la yiri an-nadaafatu min al-iimaan. Waan karaa maanta inaan dhaho roogaan bedelay, dahabaan soo iibsaday, kan baan soo iibsaday, kan kalaan soo gatay, laakiin allah subxaanahu wa tacaala waa istiraaf, waa la isweydiin doonaa. Waxa adaad haysato qof walaalkaayo baahan baa jira, qofkaas ku caawi. Adigana wixii aad haysatid horaa loo yiri wax jadiidi yacni uu ku anfici oo maasha allah bilicda gurigaaga uu qurxin. laakiinse wixii hore hadaawad haysato ood waxaagii hore nadaafasay yacni aad nadiifsato baa boqolkiiba boqol ka wanaagsan intaad istiraaf samayn lahayd. Meeshaas hadda waxaan soo qaatay waa maro yar iyo biyo. Biyahaas baan marada gelin doonaa. Kadib roogii markaan xaaqay maradaas oo carfiso, saamuun yar oo carfiso aan ku shubin kor ka mariyo, roogaygu wuxuu noqonayaa mid cusub oo hadda la soo iibiyo. Sidaa waxaan ku yiri u birbirqaaya. Waxba kama ogiba midda roog cusub soo iibsatay. Maasha allah, ilaaha waxaan haysano noo barakee. Ilaahu intaan haysan nasiib aan leenahay. Maasha allah, anigu laakiinse kolley ma jecli arkay maqlay bay ku dambaysaa. Waka hadda roogayga yar hore iska hagaajisanayaa. Maasha allah. Hadda meesha ka qaadi doonaa. Waxaan rabaa inaan dhulka dhan maanta biyo intaan saa ugu shubo. Waxaan ku yiri la dhaho de maanta meeshan saraamiga la dhigay. Hadda kaas kuraasta waxaan jeclahay. Horta kuraasteeda wallaahi maalin haddaan daayo maalinta labaad waan jafaa, because asxaabta oo mu'min amba wiilkayga asxaabtiisa u timaada cunta iskala dul fadhiistaan, shibsi baa lagu cunaa, buskudii waxbay ku dul cunayaan. Marka anigu maalin dhaaf maanta haddaan daayo maalinta labaad intoon makhaadka ka wada dul qaado ilaa yacni midda lagu fadhiisanayo oo amba kursiga yacni makhadadahan hadda aan qaaday hoostooda amba salka barkimahaas waxaan jeclahay yacni maalin haddaan daayo maalinta labaad intaan barkimaha inaan meesha ka qaado, aan meeshaas arkaysiin aad u jafo. Ma jecli ramuud baa la waayay meeshaas buu hoos u galay. No, anigu
yacni daily waxaan jeclahay wixii meeshaas galay inaan kasoo bixisho oo cunto aan noqoto amba waxyaabaha hadii sida remote-ka oo kale mobilka oo kale waxay ilmuhu ku ciyaarayaan oo kale maasha Allah waad aragtaan hadda carfisada oo ayaan ku shubi doonaa biyo yaroon wato iyo waxaan wataa leaf amba burush qofka sida u yaqaano buushkaas waxaan rabaa kuraasta meesha ilmuhu ay ka mariyeen amba qalin amba wax cunta amba yoogar amba suugo laga mariyey waxaan rabaa inaan taas ku dhaqo oon yacni meesha usoo celiyo midabkeygii amba yacni quruxdeedii maasha Allah markaan bahalkaasaa ugu dhaqo aad baan gacanta ugu xajinayaa kadibna waxaan sameynayaa maradaas baan meeshii ku qalajinayaa si qof hadduu meesha gacanta saaro aanan loo dareemin inay meeshii qoyan tahay iyo inaa bahalka biyo la taabsiiyey maasha Allah kulley waa maalin qudhahaato waa hawl culus waayo guriga intaa leg haddaa dhahdo meel kasti ayaan marinayaa yacni maanta qofku iska daalayaa laakiin xoogaa yacni 2 week oo kale waa ku moodi doonaa insha Allah oo xoogaa guriga intaa horoon baan ka xaqaaqi doonaa maasha Allah ilaahow caafimaadka noo daa ilaahow walaaliheena xanuunsanna noo caafi ilaahow intii naga dhimatayna ilaahow naxariiso jannatul firdawsa ka waraabi annagana khaatimada khayr nooga dhig wakaa hadda meesha kaas waa midkii lagu fadhiisanayay makhadadaana waxaan jeclahay inaan korkooga nadiifiyo maasha Allah markastina waan igu celinayaa annadaafatu min al-iimaan waxaagaad haysato haddaad qurxiso baa ka wanaagsan maanta dhan inaa la dhaho kursigan maa la bedilo kursigan maa meesha laga qaado sanaduu yaala maa mid cusub lasoo iibsado now waxaaga ayaad maalinba sidaad rabto daaha ayaad ka bedelan kartaa kuraastad haddaad rabto maryaha aad gashanayso baad iska bedeli kartaa qasab maaha maanta dhan inaad alaabta guriga aad bedisho heblaayo alaabtii waxa u taala 17kii alaabteeda 17ku haddii quality leedahay oo alaab wanaagsan tahay way aan u bedelaa ma intoon aan haysto haddaan rabo inaan ka bedelo designka amba decorationka maan maryo intoon usoo talo waxaan ku yiri jag aan ku siisto anaga horta maro waan haystaa laakiin marada ma geliyo badanka because maasha Allah hadda makhadadahaygaas wad aragtaan maryaa gashan markaan rabo maryaha lee ka bixiyaa maryahaas baan meedhaa sidoo kale kuraastida maryaha baa wada gashan macal barkimaha waaweyn oo salka lagu fadhiisanayo iyagana soostada bay leeyihiin marada dusha lee ka bixiyaa oon meedhaa hadda roogaga waxaan ku dhaqaa waa midka aad aragtaan xaaqinkaas waa mid yar adag oo rooga wixii galoo dhan buu kasoo bixinayaa midkan kalena waa mid jilicsan oo waxaan ku haraa dhulka ku xaaqaa maasha Allah midka aan dhulka ciida ku xaaqo amba qashinkii waxaan ku xaaqo ma jecli inaan rooga marka ahaan aan yacni ku isticmaalo meeshaasna waa balakoonkii isaga hawshaan kaga soo bilaabo maasha Allah waan soo nadiifiyey hadda dharkaas ayaa kusoo warwari doonaa markaan bogo hawshan kuraasta hala riixda ka dhacday maasha Allah waxaan jeclahay in guriga yacni usbuuceyn amba 2 usbuucba hal mar inuu qofku iska nadaafadeeyo maasha Allah waa bilicda gurigaaga waa quruxda gurigaaga waa meesha ilmahaagu ay joogaan eed adigu yacni aad ku nafisayso markaa maasha Allah hadda dhulka markaan xaaqo amba aan tirtiro qofka siduu yacni u yaqaano hawsha horta walaahi kolba waad saad ka dhigato laakiin waxaa wanaagsan maalintan anigu deep cleankan aan sameynayo amba yacni nadaafadan aan sameynayo maalintaasoo kale horta waa maalin khaas ah waayo maalmaha kale way ka duwan tahay maalmaha kale waxaa dhici karta markaad yacni inaad roogii korkiisa iskeer xaaqdo bas meelaha yar ee bambanaan hadday ilmuhu wax ku daadaadiyeen aad masaxdo laakiin maantoo kale waxaan jeclahay guriga kuraasta gadaashooda tv-ga gadaashiisa meel kasti gadaal xarfaha yacni meelaha yar oo ruqaamka amba saraamiga meesha yaala inaan darbiyadaas aan wada maydho meesha ilmuhu qalin ku qoreen meeshii qof qacan u sugo ku tirtiray 7 toddobaadba hal mar baad guriga intood sidaa u eegto aad sameyn kartaa marka maasha Allah de kuley hawsha waa iska joogto oo de subaxdii markaad soo kacdo makhaadkii iyo wixii saalantada ku halaabay waad ka hagaajin laakiin se midani mid joogto loo qabanayo maahin hadda waa meel kasti hala geliyo ushaas hadda waxaan usoo wareegay waa miiskii qadada amba meeshii aan wax ku baranaynay oo cunugeer wax ku baraayay saliyadii salaada meesha iska daadsan
يا صلاة صبحي مركي أن تكذي ألابت مش كما قاعدين بقى قبوب أسكجرو هردو وكو عررايا وحسلا حوغا باللبدو ساعدود بصدح ساعدود يعني كشو سكير سيحو هذا miiska ka ururin doonaa alla Soomaali iyo dharbaa isku nacay maanta dhan guriga dharbaa ka buuxa markaan baxnana maraan sidnaayo waxaan leenahay ilmuhu dhar ma haystaan anagu dhar ma haysano wallaahi hadda armaajada haddaad saa furto waxaan ku yiri 90 kaba dharbaa saa isku buuxa maalintaa tiraada meel aadna waxaad xidhatay kuma jiro hadda maasha allah miiskaas ka masixi doonaa kuraasta hoostooda waxaan rabaa kuraastaas iyagana meesha waa kasoo qaadayaa roogaas baa jafi doonaa insha allah marka asxaabi soo duceeyay ilaa bisha Ramadaan khayrkiisa nasiima lana mid waa boorsadii mu'min ilaa bisha Ramadaan khayrkeega nasi ilaahu kuwii caafimaad ku sooma insha allah aad dambiyadooda dhaafto ood ka dhigto kuwa 10ka dambe aad cadaabta ka xoreyso ilaahu naga dhig yaa rabbil caalamiin nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay waxaa hoogu dhahay qof Ramadaan u soo galay oo aanan loo dambi dhaafin ilaahu kuwa hanaga yeelin yaa rabbi ilaahu kuwa hanaga yeelin baan leenahay dhamaanteen aamin inoo dhaa halkan waxaan wataa waa 2 biyo nadiif ah oon ku masixi doono kuraasta cadcad ee nadiifta iyo biyahan kale oon rooga markaan kor ka xaaqo busta iyo siigada baan yani taasna in aan ku masixi doonaa waa kan waa aragteen hadda midan waa midii rooga markaad xaaqdo xoogaa haddii aad rabto inay bilicdiisu yani la moodo inaad hadda rooga soo dhaqday mara yar baa lasoo qoystaa biyo yaro carafsan maradaaba kor lagaga masaxaa wixii ciid yar ku hadhay oo xaaqinka uu si fiican u xaaqi waayay bay kaa saacidaysaa maasha allah marka waa kaas de gabdho maasha allah way iska wanaagsan tahay roogana sidoo kale markaad yani oo dhankan usoo rogayso inaad korka amba dhankii uu dhulka u yaalay inaad xogaa aad ka tirtirto waayo hadhow tole boodhka meeshaas ku hadhay dhulka markaad masaxdo amba aad hagaajiso buu yani in kugu reereebi doonaa ciid iyo wax marka waa inaad dusha saa uga tirtirtaa maasha allah de videogii wuuna nigu dheereeyey laakiinse waxaan rabaa insha allah inaan halkan kusoo koobo waxaan rabaa videoga ku xiga waxaad daawan doontaan hadda markaan nadaafadan dhameeyo jikadan galayaa waxaan soo sameyn doonaa insha allah qureeci maadaama maanta ay jimco tahay waxaan rabaa ay aakhir shacbaan tahay maanta waxaan rabaa inaan cunto badan qureec badan inaan sii cuno insha allah waayo hal bil baan ka nasan doonaa markaan waxaan rabaa bal qureeca dadka masaaridu ay cunaan inaan ila wadaago insha allah marka videoga xiga ha moogaanin waxaad arki doontaa yani qureeca maadaama inagu aan cunno un laxo waxaad arki doontaa yani qureec ka duwan qureeceena marka insha allah waxaan rabaa videoga ku xiga inaad la socoto haddaba ka kuraastii ayaan masaxayaa maasha allah meesha oo siigada leh anigu first floor baan deganahay xoogaa marka gurigeyga siigada waxaa moodaaba inaan annaga aan isla dhalanay gurigii waa kaas guri habeen la degayba lama moodayo bismillah inaa weligii la masaxay lama moodayo marka maasha allah hawsha way soo dhadhawaatay videoga kan ku xigayuu ku dhaafin baan ku leeyahay insha allah saaloontadan marka loo qubeeyo waxaan ku yiri balsay soo baxdo insha allah adigaana la arki doona inaa bal wax cusub ay u baahan tahay iyo inay sideedaa hore okay ay ku tahayna dhanka commentigaad noogu soo qori doontaa insha allah videoga haddaad ka heshay waxaan ku leenahay like noo saar aad baad u mahadsan tahay intaad waqtigaagana siisay maasha allah haddaba ka daahayaashii baan meesha ka furay daahayaal baan kale oo guriga ii yaala ayaan ku bedeli doonaa insha allah daahayaal cusub kuley maahin laakiin waa daahayaalan sii haystay maamadeyda ayaa hadiyadii igu soo dhiibtay maasha allah waxaan halkaana meelaha boodhboodh iyo waxaa baan ka tirtirayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin maasha allah bal daahayaasha kale aan ku xidhana waxaad kala socon doontaa videogan kan ku xiga aad baad u mahadsan tahay waxaan leeyahay lagu saliya xabiibkeena allahumma salli calaa sayidina maxamed wa calaykum asalaam